daahi markuu saa u wareejiyey ayay asxaabtu wejigiisa arkeen nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadii bay ka fidnoobi gaareen buu yidhi salaadii ayay ka bixi gaareen oo ka fidnoobi gaareen wuxuu soo fiiriyey muslimiintii oo tukanaysa oo salaadii u safan ayuu soo fiiriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd nadaradii ugu dambaysay oo muslimiinta uu soo eego iyagoo tukanaya oo uu raalli yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam risaaladiisii inuu gutay diintii ilaahay subxaanahu wa tacaala kor noqotay dadkii ay wada gaadhay muslimiintii ay tukanayaan oo khaliifadoodii uu hogaaminayo intaas markuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu hal mar soo eegay markaasuu muusooday nebigu calayhi salaatu wasalaam markay damceen salaaddii inay ka fidnoobaan wuxuu yidhi calaa rislikum sidiina ku jooga sidiina ku jooga ayuu yidhi dabeedna daahi buu xiray nadradaasana ugu dambaysay muslimiinta calayhi salaatu wasalaam maalintaas marka inuu duhurnimadii dhintay iyo inuu galabnimadii dhintay iyo inuu barqadiiba naftu ka baxday nebiga calayhi salaatu wasalaam intaasba way sheegeen ahlu siyarku 63 sano ayuuna nebigu calayhi salaatu wasalaam sida la isku waafaqsan yahay uu ku geeriyooday waxaan ku soo khatimaynaa dardaaranadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dardaaranadu aad bay u fara badnaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah dardaaranadaasaan ka soo bilaabaynaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xajatul wadaac markii uu tegey xajka maalintaa khudbad dheer uu jeediyey dadka aad ugu dheer khudbaddaas waxyaaluhu ka hadlay kow waxaa ka ahaa dhiigga muslimiintu inuu xaaraan yahay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada dardaarankuu ka dardaarmay wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kow dhiiggiinna sharaftiinna maalkiinna xaaraan bay idinka tahay sida maalintanu xaaraan ay u tahay in taaganna carafaa bishan dulxija siday xaaraan u tahay beledkan makaa siduu xaaraan u yahay aan waxba loo dembi loogu samayn karin ayaa dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo naftiinnaba xaaraan idinka yihiin bimacnaa dadka muslimiinta ayow qaarkiinna qaarka kale yuu dhiiggooda iyo sharaftooda iyo cirdigooda iyo maalkooda yuu ku xadgudbin laakiin waynu khilaafnay nebiga calayhi salatu wasalaam muslimiintu waa isbannaysteen innaga maanta soomaali haddaynu nahay xataa waynu isbannaysanay qolo walba dhiiggeeday bannaysatay iyo maalkeeda walaa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcadiim nebiga calayhi salatu wasalaam dardaarankaasna waa la khilaafay wuxuu kaloo maalintaa ka dardaarmay nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka ayuu ka dardaarmay wuxuu ku yidhi dumarka xoolihiinnaad ku qaadateen furuujtoodii baad bannaysateen oo kelimaddii ilaahay ku bannaysateen waxaad cuntaan ka quudiya waxaad lebisataan uga lebisa idinkuna waxaad ku leedihiin guryihiinna inaanay cid aydinaan raalli ka ahayn ayan u idmin ayaad ku leedihiin arrinkaasna wuxuu ka dardaarmay nebigu dhaqan wanaagsan dumarka in lagula dhaqaaqmo xuquuqdoodana loo dhammaystiro oo ay ninka waajib ku tahay nafaqadooda iyo dhaqankooda wanaagsan inuu waajib ku yahay arrinkaasna dad badan oo muslimiinta ka mida ayaa dayacay wuxuu kaloo ka dardaarmay maalintaa nebigu calayhi ribada ayuu ka dardaarmay in dadka muslimiinta ayan cunin wuxuuna yidhi riboo dhan lugtayda hoosteeday ku jirtaa ribada ugu horraysana ribada adeerka cabbaas bin cabdilmutalib weeye marka nebigana calayhi salatu wasalaam ribada uu ka dardaarmay dadka muslimiinta ah maanta in badan oo ka midi way bannaysteen walciyaadu billaah markii uu yimi jamaraadka oo dhagaxa uu tuurayey wuu dardaarmay iyadana wuxuu ka dardaarmay laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin halkaas goobtaas jamaraadka ayuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam war gadaashay ha noqona gaala ha noqonnina qaarkiin qaarka kale uu luqunta ka garaaco isdishaan ha noqonnina buu yidhi oo gaalo oo kale ha noqonnina wuxuu ka dardaarmay isla goobtaas inay muslimiintu kala dammayn iyo ismaqal yeeshaan xataa qof addoona hadduu madax idiin noqdo oo kitaabkii ilaahay idinku hoggaaminayo ismacuu wa atiicuu buu yidhi ismaqla oo isadeeca qofkaasu hadduuba kitaabkii ilahay idinku hoggaaminayo diintii ilahay hadduu idinku hoggaaminayo
adeeca oo maaragtay hadalkiisa qaata wuxuu kaloo goobtaas ku dardaarmay nebigu calayhi salaatu wasalaam laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ila bitaqwa dadku inay isku mid yihiin oo muslimiintu isku mid yihiin oo mid cad iyo mid madow iyo mid guduudan aanay kala lahayn laakiin taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya ku kala mudan yihiin ilaahay karaamadiisa marka ha isu faaninina wey oo ha isyasinina walidaalika arrinkaa waa la khilaafay bannaankaa lagu tuuray dadkii qaar waxaa loo bixiyey magacyo qaar waxaa loo bixiyey lagama guursado qaar waxaa la yidhi lalama xidhiiro qaar waxaa la yidhi waa magacyo kaley leeyihiin waa la takooraa qoloba qola ayay maaragtay yastaa dadkii muslimiinta ahaa waxyaalahaasoo khilaafsan nebiga calayhi salatu wasalaam dardaarankiisiina way ku dhaceen walaa xawla walaa quwata ila billah waxaa kaloo ka mid ahaa dardaaranadii ugu cuslaa oo meeshaasuu ku dhiibay nebigu calayhi salatu wasalaam uusiikum waxaan idinkula dardaarmayaa kitaabka ilaahay iyo sunnadayda haddaad qabsataan ma lumaysaan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayna wuu idin weydiin doonaa maxaad odhanaysaan waxay yidhahdeen asxaabtii hal mar waad gaarsiisay waadna soo gaarsiisay waadna seexaysay waadna soo gaarsiisay allah hal ballaqtu allaahumma fashhad ayuu 3 jeer yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ku celceliyey waxaa kaloo ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii uu wakhtigaas ka digay waxaa ka mid ahaa adduunyada iyo ku tartankeeda addunya watanaafusi fiiha waxaan ka baqayaa buu yidhi inaad ku tartantaan siday kuwii hore ugu tartameen oo ay idin halaagto siday kuwii hore u halaagtay waana wax dhacayoo dardaarankii nebiga calayi slam waa la khilaafayo waxa maanta la isku dilayo oo muslimiintu ay asaagood uga hareen oo ay gaalo u qabsatay ma aha wax kale ilaa adduunya isku dilayaan maaha ma diin bay isku hayaan maya xukun iyo kursi iyo qabiil iyo xoolo iyo anigu aan maago iyo siyaasad intaasay isku maagay waa adduunyo kullu waa adduunyo inteeda badan muslimiinta adduunya isku baabi'iyeen iskuna laayeen ayna ku halaagsameen halaagana waxaa ka mida in gaalo qabsato gaalo inay qabsato oo xoolahoodii iyo dhulkoodii iyo maalkoodii iyo naftoodii ay u taliso maanta caalamalislaami oo dhan sidii la doono laga yeelo waxaa keenay adduunyada xub الdunya وكراهية الموت وأنا سئل النبي عليه السلام أخشى أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وأنا سئل الشيء النبي عليه دردارا كيسبي كم ذاهيد intuu firaashka jiifay nebigu calayhi salaatu wasalaam dhowr dardaaran oo muhiima ayuu bixiyey dardaaranadaas waxaa ka mida kow kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaam soo sheegnay waxaa kale oo ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka digay in masaajidda qubuur laga dhigto hadalladiisii ugu dambaysay waxaa ka mid ahaa lacana allahu alyahuuda waannasaara yahuud iyo nasaara allaha lacnado ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid qabuurtii nebiyadooda ayay ka dhigteen masaajido oo masaajidda ku dul dhiseen waxaa ka mid ah alaa laa tattakhiduu qabri ciidan qabrigayga ciid lagu kulmo oo lagu maaratay baashaar yaan laga dhigin arrinkaasaana ugu wacnaa bay tiri haddii aanay saas ahayn qabrigiisa waa la muujin lahaa bay tiri caaisha radia allahu tabaaraka wa tacala canha walidaalika nebiga calayhi slam laguma aasin masjidka waxaa lagu aasay guriga caaisha radia allahu tabaaraka wa tacala canha ayaa lagu caashay xujradeedii ayaa lagu aasay xujraduna masjidka way ka baxsanayd laakiin waliid ibni cabdilmalik ibni marwan oo gadaal ka yimi oo khilaafadii umawiya ayaa qabriga soo geliyey masjidka soo geliyey waana arrin culimmadu ay ku waafaqsanayd maahayn oo dadkii xataa joogay ee wakhtigaa taabiciinta ahaa kuma waafaqsanayn arrinkaas isaga ah waxyaalaha kale ka dardaarmay waxaa ka mid ahayd salaada nebigu calayhi salatu wasalaam as-salaah wamaa malakat aymaanukum salaada ayuu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inta aanu naftu ayan ka bixin wamaa malakat aymaanukum wamaa malakat aymaanukum laba arrin bay ku fasireen culimmadu midi waxa weeye xoolaha waxaa xoola haysataan zakadii ka bixiya oo yacni wixii xaq lagu lahaa ka bixiya midda labaadna waxa weeye loo badan yahay malakat aymaanukum yacni dadka gacantiinnu hanatay oo addoommada iyo khadamka iyo shaqaalaha iyo dadka dacafada idiin shaqeeya oo aad haysataan idinku dadka u naxariista oo maaragtay ha ku xadgudbinina
ha ku xadgudbina walidaalika dadka shaqaalaha dadka ducafada dadka maaragtay ku baahan adiga waxa xaqooda inaad iska ilaaliso ishooda inaad iska ilaaliso inaad iska ilaaliso xuquuqdooda oo aad waxooda siiso iyadoo waliba waxooda ay u dhameystiran tahay way waxa kale oo kamid ah waxyaalihii uu ka dardaarmay nabigu kaleey salaatu wasalaam in mushrikiinta laga saaro jasiiratul arab in laga saaro oo laba diin aanay joogin diin kale iyo diinta islaamka inaanay wada joogin akhrijul mushrikiina min jasiiratil arab jasiiradda carabta ka saara wiil mushrikiinta waxa ku jira ka saar oo islaam jasiiratul islaam way meeshaasu waa saldhigii islaamka waxa kale oo kamid ahayd ajizul wufuda bima kuntu ujizu yani wafuda idinta maadana wixii aniga aan ku martisoori jiray oo ugu abaalgudi jiray ugu abaalguda taasna uu ka dardaarmay nabigu kaleey salaatu wasalaam oo dardaaranmadiisii u dambeysay nabiga kaleey salaatu wasalaam ayay kamid ahayd oo nabigu kaleey salaam ummadiisa uu u tilmaamay marka walaalayaal ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryeynaa waxyaalaha cibradan ka qaadanayno waxa weeye nabiga kaleey salaatu wasalaam siiradiisa in la daraaseeyo noloshiisa ajaa'ibka badan ee ku dayashada inooga mudan inaynu ku dayanno maxaa aynu ku jeclaan karnaa nabiga kaleey salaatu wasalaam oo aynu ku heli karnaa shafaacadiisa yawmal qiyaama waxa weeye shafaacadiisa iyo jacaylkiisa nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaynu ku helaynaa inaynu raacno sunnadiisa inaynu raacno ku dayanno siiradiisii baranno sunnadiisii baranno caruurteenna barno dumarkeenna barno dadkeenna barno aynu maaragtay inagu ku noqnoqono oo aynu siiradiisa la noolaano nabiga kaleey salaatu wasalaam taas baynu shafaacadiisa iyo xawdkiisa ku helaynaa oo aan leynooga celinayn maalintaas waayo dad baa jira ummadiisa kamid oo laga celinayo oo xawdkiisa aan imanayn marka walaalayaal ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu naga dhigo kuwa sunnadiisa raaca oo nabigooda kaleey salaatu wasalaam ku dayda oo ku saliya habeen iyo maalin salligiisa badiya oo caruurtooda iyo guryahooda iyo dumarkoodaba ku dhaqa inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala dhammaanteenba nagu kulmiyo xawdkiisa inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala nagu kulmiyo shafaacadiisa kaleey salaatu wasalaam inuu ilaahi nagu kulmiyo ilaahayna nasiyo shafaacadiisa wajigiisana ilaahi subhanahu wa ta'ala natuso nala kulmisiyo jannada ilaahi subhanahu wa ta'ala nabigeena iyo asxaabtiisa iyo inta saalixiinta ahaydba ilaahi subhanahu wa ta'ala nagu la kulmiyo sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawm الدين جزاكم الله خيرا جزا الله شيخنا شيخ محمد إدريس خير الجزاء إن شاء الله تعالى محاضرة دور سؤالات إن شاء الله الشيخ إنه جواب سوكب كوابه أيان قدم بيسيرنا سؤال كواد الشيخ محمد سعد كور قبته بريهان يوروب أما اسكندنافيان كا وحكت شرتاين النبي صلى الله عليه وسلم لقوا حد قدبي صوره يا فلقادوين هذا بقف كدول كن كنول sidee ayuu nabigiisa ugu gargaari karaa waxyaabaha laga sheegi karaa uga hortagi karaa alxamdulilah allah subxaanahu wa tacaala qur'aan kariimka ah ku leeyahay inaa kafaynaaka almustahzi'iin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay nagaa kaa kaafinay mustahzi'iinta yacni kuwa kugu jeesjeesay wuxuu kaloo leeyahay allah subxaanahu wa tacaala ina shaani'aka huwa alabtar nebiga kaleey salaam ciddii aflagaadhaysay oo wax ku sheegtay isagaa abtar ah buu nebiga kaleey salaam yacni dabar go'an oo aan waxba caqiba lahayn ama ahara lahayn marka horta gaaladu weligeed waxay ahayd dadka gaalada ama cadaawadda ay u qabaan islaamka inay ay ku toogtaan ramsiga islaamka oo ah nebiga kaleey salaatu wasalaam inay maaragtay markaa ay wax ka sheegaan waa caado ay lahaan jireen oo soo jirtay ilaahayna subxaanahu wa tacaala kaafi buu u yahay annaga maxaa nagala gudboon inaan ka qiiroonno ayaa nagala gudboon nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo waxa lagu sheegayo ama cidda maaragtay wax ku sheegaysa laba qaybood bay markaa u qaybsamaysaa qaybi waxa weeye dadka muslimiinta mas'uuliyaddooda haya oo dawladaha ah oo awoodda leh qaybina waxa weeye muslimiinta caamadooda iyo dadkooda shucuubta ah laba waajib qof walba awoodiisa intay tahay baa saaran ama dawladaha iyo dadka muslimiinta awooddoodii haya awooddoodii waxa saaran oo waajib ku ah inay ka dhiidhiyaan oo ay go'aamo adag ka qaataan dadka ama dawladaha ama muxuu ahay iclaamka ama kayrkiis
ciddii nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegta ama la gaadhaysa ama wax ku samaysa inay markaa go'aamo u qalma awoodda muslimiinta inay qaataan ayaa la gudboon waajibna ku ah hadday gabaanna waa lagala xisaabtamaya hadday gabaanna waa lagala xisaabtamaya ilaahay subxaana wa tacala ay kala xisaabtamaya oo dadka muslimiinta ayaan awoodda lahayn dee markaa kuma laha dembi kuma lahaanayaan insha allahu tacala ama dadka muslimiinta ah waajibka horta ugu muhiimsan oo saaran waxa weeye inay nebiga calayhi salatu wasalaam iyagu tusmo inay u noqdaanoo yacni dadkan in badan oo ka mida jahli ayaa ka haya nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ma garanayaan nebiga calayhi salatu wasalaam saas darteed inay aflagaadheeyaan marka nebiga calayhi salatu wasalaam inay dadka muslimiinta dhulkan jooga khaasatan ay nebiga calayhi salatu wasalaam akhlaaqdiisii iyo diintiisii iyo iyagu inay tusmo u noqdaan inay faafiyaan inay sheegaan inay siiradiisii dad gaarsiiyaan ha noqoto jaraa'idka ha noqoto websaytyada ha noqoto ummadaha meelaha loogu khudbayo ha noqoto meelaha loogu sheego keliya ma aha dhinaca carada iyo ixtijaajka keliya ma aha dhinacaas waa dhinac oo dadka maaragtay waxaa sameeyey ama joornaalka sameeyey ama dawladda samaysay go'aankeeda laga qaato laakiin dhinac kale waxaa kuu bannaan ah dee dadka kaleeto inaad tusiso ummadaha kale inaad tusiso shucuubta kale inaad u sharaxdo annahu raxmatun lilcaalamiin nebigan calayhi salatu wasalaam raxmadda ah iyo diintiisii iyo wanaaggiisii iyo sunnadiisii iyo siiradiisii inaynu faafinno taas weeyana taxaddiga weyn oo ina haysta oo laynooga baahan yahay inaynu nebiga calayhi salatu wasalaam ugu khidmayno diintiisa wallahu aclam su-aasha labaad saa'ilku wuxuu leeyahay sheekh ilaahay dartiis ayaan ku jeclahay muxaadaradii dhexdeeda waxaad ku sheegtay in rasuulka sala allahu calayh wasalam sakaraatulmowtka aada loogu dhibay taa macnaheedu ma laga fahmayaa qofku ka khayr badan yahay in sakaraatulmowtka lagu dhibo alxamdu lilah waxaa kala jira yacni sakaraadku waxa weeye yacni xanuunka la socda mowdka gerida wey laakiin naftaa lagu dhibay ma aha oo axaadiiska kaleeto oo laga yaabo inaad ka qaadatay oo qofka xun nafta waxaa looga jiidaa si adag oo xun baa looga jiidaa inaad ku shabbahdo baa dhici karta isku mid ma aha waxa weeye sakaraadku macna waxa weeye qandhada la socota xanuunka la socda oo jirka kaas weeye sakaraadku laakiin nafta marka laga qabanaayo qofka mu'minka ah si sahlan baa sida axaadiistu ay sheegayso looga qabtaa qofka gaalka ama munaafiqaana jirkiisoo dhan bay naftu inta ku faafto ayuu sidii yacni biro oo kaleeto lagaga jiidaayo ayaa nafta looga jiidaa marka macnaheedu isma diidayaan in imtixaanka iyo qandhada iyo xanuunka iyo ibtilaagu uu u badan yahay dadka saalixiinta ah iyo siday u kala saalixsan yihiin iyo in nafta